Assalaamu calaykum. Sida la wada ogyahay, inaad guulaysataa maaha mid fudud. Waa mid ay ka horreyso dhibaato fara badan iyo caqabado aad u fara badan, khasaare, daal, fikir joogto ah. Sidaa awgeed ayaa dadka guuldareystayaasha ahi waa qaar aan mushkiladaas u babacdhigi karin una adkeysan karin, waayo mushkiladda ayaa ka weyn, halka dadka guulaystayaasha ahi ay mushkiladda ka weyn yihiin oo ay dusha u ritaan, maxaa yeelay waxaa u muuqda hadafkooda iyo meeshay calaamadsadeen. Dadka dhibta dusha u ritaa waa qaar u dhaqma sida qisadani ay tilmaamayso ee daawasho wacan. Balse intaynan qisada gudagelin, muuqaalka like saar. Sidoo kale haddaad nagu cusub tahay, subscribe channelka oo nagu soo biir. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay, siina sheer gare. مرحبا بك رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان. waxaa jiray nin beeroolaha. Ninkani galab ayuu wuxuu alaab haystay oo dhan faraskiisii ku soo raray. Isaga oo dariiqa socda ayaa faraskiisii lama filaan ugu dhacay ceel dheer oo dariiqa agtiisa ku yaalay. Ninkii faraska lahaa wuxuu isku dayay inuu ka soo saaro, laakiin nasiib darro way u suuroobi weyday. Wuxuu u yeedhay dadkii jaarka la ahaa si ay u caawiyaan, laakiin nasiib darro iyaguna way ka quusteen inay faraska ka soo saaraan. Intaa kadib waxay isla garteen in faraska meesha lagu aaso si ayna cid kale wax ugu noqon oo isaga dhibtu ku ekaato. Waxay bilaabeen inay faraskii ciidda ku rogaan. Faraskii miskiinka ahaa wuxuu nolol ka quustay markuu arkay ninkii raran jiray oo ciidda ku rogaya, wuxuuna yaqiinsaday inayna u maqnayn cid kale oo uu taageero ka sugo oo ay suran yihiin isaga iyo xeeladiis. Markastoo dusha lagaga shubay ciidda, dhabarka ayuu ruxayay, ciidduna hoostiisa ayay ku daadanaysay. Dadkii waxay ku war heleen marba marka ka dambeysa inuu sare u soo baxayo, faraskiina sida ayuu kaga soo baxay. Qisadan waxaan ka qaadanaynaa dadka horumarka sameeyey waa dad dhibaatada ku dhacaysa dhabarka u ruxa, kadibna dhibaatadu ay hareerahooda ku daadato. Laakiin dadka ay mushkiladu ka weyn tahay waa dadka markay dhibaata timaado warwar iyo walbahaar dilo. Dadka guuldareystayaasha waxay ka fogaadaan wax kasta oo dhib u keenaya. Markay arkaan dhib way ka ordaan, laakiin taasi waxay dhaxal siisaa dhib ka weyn tii ay ka ordayeen, oo ay ugu horreyso guuldarro, faqri iyo inay nolosha ku fashilmaan oy waxba ka qabsan waayaan. Kolba inta mushkilad xalintaadu tahay ayaa waxaa kor u kacaya qiimahaaga. Kolba inta mushkilad xalintaadu tahay ayaa waxaa kor u kacaya hodantinimadaada. Kolba inta mushkilad xalintaadu ayaa waxaa kor u kacaya hogaamiyenimadaada. Daawadee waad ku mahadsan tahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay, subscribe channelka oo nagu soo biir, muuqaalkana sii sheer gare. Wassalaamu calaykum.